السلام عليكم سو دوادا meel kastaba adduunka daafaheeda aad joogtiin muddo dheer maalis arag insha Allah waxaan jeclahay mawduucan inaan la sheergareeyo khaas ahaan dumarka Soomaaliyeed mawduucan wuxuu khuseeyaa anigu muddo dheer ma soo gelin live waayo qadiyado oo xoog oo laga hadlay ma jirin laakiin waxaa la yiraahdaa maanta waxaan u soo galay waa arrin khuseysa dumarka Soomaaliyeed cadaalad xumada Soomaaliya ku haysa dhibaatada waxaa la yiraahdaa Soomaaliya ku haysa dowladda Soomaaliya ku hayaan ragga Soomaali ay ku hayaan dumarka Soomaali waxa weeyaan waa haafka mujtamaca yani haddaan dumar ma jirin caruur iyo ubad iyo dowlad iyo waxaasba ma ba jirteen laakiin waxaa jira rag Soomaaliyeed oo dumarka Soomaali si kastaba xaqooda ugu cunaya iyadoo waliba raggu ay garab waliba dumarku ay garab taagan yihiin yani imika midna doorasho ayaa jirta doorasho soo socota haddii farmaajo noqoto haddii dini noqoto haddii maxamed cabdisalaam ay noqoto hadday noqoto cid kastaba hadday noqoto oo madaxa oo Soomaali ah waxaa la yiraahdaa number 1 codka iyo dhaqaalaha iyo dahabka la furfurayo dumarka Soomaali baa laga qaataa ragga Soomaaliyeed bakhaayad bishaa ka cabaa waxa shilna ma haystaan hooyada yaanyada iibinaysa waxaa la yiraahdaa suuqa wareegaysa ayaa lacagtooda iyo codkooda iyo gabigooda iyo braaburkooda iyo wax kastaba iyaga ayaa laga soo qaataa iyadoo saas ahna waxaa la yiraahdaa ragga Soomaali waxaa la yiraahdaa dumarka xaqooda way ku tumanayaan si kastaba ugu tumanayaan si kastaba xaqa dumarka way ku tumanayaan marka waxa ayaan darro ah in dumarkaasi iyaga laftoodu dulumka lagu hayo ay ogol yihiin يعني مثلا ما أنت أنا أربان أركي صراحة قيري جلسي ودبعت هذا يتعدي قبلها لوجي سنة الصومالية ديت والله ولا تكسم واي إما كان إنك الصومالية ديت يربو إيمانا يا باسبور مقالنا يا أبنا قالوا الجرسنا يا أمبا أمريكا هالنقطة أمبا شرمل هالنقطة أمبا تركي هالنقطة أمبا هندي هالنقطة أمبا بنغاليد هالنقطة بنغاليد هالجرسدو أمبا عدو دونها هالجرسدو caruurtu dhalo isagoo baasaboor ajnabi haysta Soomaaliya markuu yimaado caruurtiis baasaboorkiisa qaadanayaan dhalashadiisa qaadanayaan Soomaalinimadiisa qaadanayaan marka waxa loogu diiday gabdhaha Soomaaliyeed haddii nin ajnabi ay guursato in waxa la yiraahdaa caruurteedu ay waxa la yiraahdaa dhalashada hooyadeed ay qaataan waliba arag la yaab maayo dadka Soomaaliya jooga war waxaan barlamaanka war fadhiyo Soomaaliya iyo Puntland iyo waxa la yiraahdaa Somaliland iyo waxa la yiraahdaa Galmudug iyo waxa la yiraahdaa Jubbaland kulligood waxa war haysan baasaboor Europe war haysan badankoodu boqolkiiba 90 waxa haysan baasaboor European bay haystaan isagoo baasaboor European haysta oo wadanimadiisii iibiyay oo waxa la yiraahdaa iibiyay waxa la yiraahdaa Soomaalinimadiisii iibiyay عشان lacag yar qaxooto ka qaadanayay tacliim yar oo ku helo oo wadankiisii wali burburiyay ayaa maanta wuxuu ku leeyahay gabar Soomaaliyeed oo waxa la yiraahdaa nin ajnabi guursatay dastuurka Soomaaliya wuxuu leeyahay baasaboor xaq ma ku laha يعني أنا تابل أرنتها واحد جعلها إن شاء الله نمبر كي حال جرك سوق قرية إني بل قبله أي إنا مضو أرنتها لقى هذا واي والظلم وين قبر Soomaaliya deed oo waxa la yiraahdaa qurbaha ku dhalato amba waxa la yiraahdaa gudaha ku dhalato hadii nin ay guursato okay iyada waa garanay laakiin caruurteeda dee adeer xaq buu leeyihiin waxay hooyadeed ay tahay hooyadii hadday Soomaaliyeed tahay inuu inanka Soomaaliyeed baasaboorkiisa Soomaaliga u qaato
يعني وحيابها أنا ولا يابي مركا موضوع تاسو كخسيا قفك الدونية أنتو كسو قيب قاتو ويلكم بالنا هاي كسو دوالا نمبر كاسوايا لكن إن شاء الله ما كان الله كبو حي صوعنا الله يخليكم يا ولا قال الصومالي نمبر حاجة كسو قرصايا مركا الله في بحدي أيانا هبيك اللي يسي حنين بليز نمبر كيقول سو قريا حقنا لقى هضليا مركا حاجة دماتو بليز نمبر كيقول أمانة اللي قد ده مركا إن شاء الله سو دوالا إن شاء الله قفك كسو قيب قليا وحالي راها متى واحد سو قرصي حقا وهيركو كي وشاهي بي كرات سنسا باسبور إن هذا waxa weeyaan qofku waa muslim horta Soomaalida waxba ka qaldan in hada reema kaan nin ragabana naag ajnabi oo gursanaya waxaan doona waa sameynaya gabadha Soomaaliyeed aad sida 9 bilood aniga ilagu dhalay ayaa iyadaba loogu dhalay xuriyad bay leedahay diinteeduna xuriyad bay siisay ninkay doonto oo familkeedii dadka isku waliinta gursato taas waa markay family noqoto laakiin markay dawlad ay noqoto dawladda Soomaaliya xaq ma u laha inay gabar Soomaaliyeed oo caruur dhashay inay caruurteeda ku tala Soomaali ma tiidin haday sida ay tahay Soomaali boqolkiiba 80 baasaboor European bay haystaan ninka baasaboorka European bay haystaa oo ka baxay wadanimadii Soomaalida oo ka baxay marka xaqeeba baasaboor baa asalba loogu siinaya ninka ragga aniga iyago kala imkaan u jarwaba jooga baasaboor ba qaadanaya de hadaba gabadhii Soomaali loo diidayo aniga waxay igu ogolaanayaaba ma garateen marka ana waxa la yaabay gabadhan hadaad ugu Soomaali joogtid baasaboor yurub gudsi waa soo tahribtid adeer gabdhaha ka banay ala difaac xuquuqdoodii ما فهمت لانه وحقي وحق واحد جرى وحق على هاي يا وح انا حق انا لهين ما انت انا نرقبانا ودكي سومالي وين جوغا كسوقاد قبل اجنبيه ذا كاني ده marka waxa weeyaan in aniga gabadhu inta ku sinaano marka xeerka weeyaan sida anigu leeyahay gabadh leeyin ajnabi guursatay daani leeyahay ninkani gabadh ajnabi guursatay gabadh baaswarkeed ha doonto هذا واتا ويان لكن انا قبلها للظلم ولو جوجوس انك انا عسينا قبله والله رجل الصومالي دلقاتك اوليدهين صومالي انك غعنتك ku haya انك dhaqaale gacanta ku haya انك wax kasta gacanta ku haya انك carruurtii la soo rafanaya انك ayaa waxa leeyahay carruurtii u dhimanaya oo anaka iyo ragga baqaayad ba ka sheekeenayo qabyaalad ba ka sheekeenayo san wadankayga burburno ba ka sheekeenayo sidaas la hadna ba ka sheekeenayo sidan xamaro ugu shaqeysan Ethiopia ugu shaqeynaa ba ka sheekeenayo sidan Eritrea iyo Xabashi iyo Kenyaati aan dhulka u soo gelin lahayn ay noo hiirin lahaayeen dad ajnabiya oo dhulkayga tibriya ba ka shaqeynaa taxaqawle waxa weeyaan tan dhulkeedii fadhida ee marka yaraa in adeerkaaba maanta wasiir loo sharaxaya dahabkii furaysa markaasuu ka in adeerka markuu wasiir u noqdo amba uu baarlamaanka Soomaaliya soo fariisto ayuu soo istaagaya gabadha Soomaaliya xaq ma laha gabadha Soomaaliyeed baasaboor xaq ma ku laha carruurteedu xaq ma ku laha inay baasaboor ay qaadato laakiin anigu waan qaadanayaa Soomaali baan ahay nin baa dhulka iska leh hadda waa ninkii baabinay wallahi alcadiim xaqiiqa ma ka hadlaya وظلم وين ويان ورحلة شرقرينيو فيليبا ودين قفك يسوي عيانا يسوي إن شاء الله نمبر كيما كان سوق بنيا وحانا تجعلها ضدك الضمير تله السوشيال ميديا هكوشرة والله العالم تعرفك هلا ورياخ أنا ولا شيء ما تهدني أجنبي قوا ده حق بقول له عرضها الأبتيك هو حق بقول له إنه صومالي مدي سو حالي أنا عديو أنا أبتوا أنا يا أبتوا هاو إنك أبتيك أنا وهاي أليرا وأجنبي أوجي بابا كل شيء أيدي بابا كل لطي هاو سوء نقم كرقف أجنبية مراكا كاسات ما جنوش حاتي باسبور هذا الله باسبور الله عقبر أجمراكا نقول سدي عرضي دوا مراكا وين نقضى لا كنت داشينو واي هاي قبل الصومالي وحاول جديد يصير هذا ربتيدين واي
gabdhaha Soomaali waxa ugu diidaysa haddii nin ajnabi guursatay madiin bay ka baxday magaalay noqotay adeer may noqon gaalo wala diintay ka baxday waxa la yiraahdaa waxay difaacaysaa carruurta nin bay guursatay jacayl bay ku guursatay in muslimo bay guursatay ilaaha ka baqay guursatay waxa ka rabtiin oo dumarka loo cadaabaya taaba anigu waxaan la yaabsanahay dawladda dhan ee la sheegay haddii qabiil ahaan lahayd iyo haddii sheeko hoose ahaan lahayd iyo dhib ma laha dawladda dhan ee lagu leeyahay federaalka jamhuuriya al-federaaliya lagu leeyahay dee adeer haddaba ka dhiga waxaa la yidhaha jamhuuriyadda farmaajo jamhuuriyadda waxaa la yidhaha kan waxaa la yidhaha haysta aqalka Soomaaliya haysta ka dhiga magaca qabiilkiisa isaga marka family lagu qoro marka qofku xur buu yahay imka sac carabo kale imaaraadka kale dee ma siiyaan sababtoo ah maxay ninba dhulka iska lahaday iska daaya kii muwaadinka u dhashay buu ka qaadi karaa baasaboor waran karaa shalay Pakistan baa ka timiyo shalay waxa ka timi Hindiya ka timi laakiin jamhuuriya Soomaaliya al-federaaliya baa leeyahay jamhuuriya macnaheedu waa maxay waa shacabkuna waayo waa rag iyo dumar weeyaan shacabku ma aha rag adeer jamhuurnimada kelmadda jamhuuriyadda iyo Soomaali wax badan ba ka qaldan adeer hada doonto samaa khilaafa islaamiya ma la ogolada dumar intay wax ka noqdaan laakiin meesha waxa leedahay dhaqankii gaaladana waa rabaa muslimna waa sheeganaya socon mayso talabaad xaq baaba u leedahay gabadhu war islaamkaaba ku leh islaamkii baaba ku leh tazawaju min al-abaa'id wala tazawaju min al-aqarib يعني waxa laga guursaa marka soo dadka fogaaba laga guursaa diintaada ku faraysa markaasa diintaada waxa ku faraysa inay ka xaga ka dhashay waxa la yiraahdaa maaha Soomaali sheebka ma Soomaalinimada ma dawladda federaalka bixisa marka adeer waxa weeyaan gabdhaha Soomaaliyeed dulum baa lagu hayaa wallahi anigu intaas sanado imka sanad life ma soo gelin jiwaalka iska aamusnaa waayo wax laga hadlaaba jirin Soomaali shaqajaan oo doqona oo nacasa oo maskax lahayn ayaa xaga ku faraysan iska kacaaya iska maagaya laakiin maanta arintan inta laga aamuso gabar Soomaaliyeed ina xaqeedii la cuno oo codsatay ina baasaboorkii la siiyay carruurteeda laga diido dee adeer waxa weeyaan haddaan aamuso damiir mali xayawaan baan ahay bistinkel baan waayo anigu saan anigu ogolahay inay walaashi xaq ay hesho inay waxa yiraahdaa gabdhaha hadii ajnabi guursadaan amba yahuud guursadaan amba waxa doonaan guursadaan inay wax ay helaan ayaan jecelahay gabdhaha Soomaaliyeed jecelahay anigu ma jeclita xaqqa gabdhaha Soomaaliyeed wallahi alcadiim haddaan maanta anigu madaxweyne Soomaaliya ka ahay amba wasiir ka ahaan lahaana wallahi waa u doodi lahaa wallahi alcadiim nin Soomaaliya wuxuu hayaa ilkaha ma cadaydo qaad buu cunaayo afkiisii baa oraya waxay ku guursanaysaa gabar Soomaaliyeed afar iyo labaatan saacadood ba qaad soo cunaya markuu dhunkanaya waxa ka soo baxay dhareer ba ka soo baxaya ma meeranayo afar cisho soo jeedaya oo dhulta tagtaagan yihiin Soomaaliga leeyahay gabadhu hadday nin Soomaali guursan weydo ma ahaba Soomaaliyeed deegaanada ma waxaasay guursataa billahi calaykum waxaasay guursataa ma cadnaan carab la yiri ilka cadaydo oo ishagaajiyo oo cidar isla dhaco burfur isla dhaco ya adeer waxaan waan aragnaa xaqana ku aragnaa jarmalka waxay yihiin Soomaalidu والله فكيو نك أنا جاية هذيك فكيو هذيك شقشان باتي سوماليين والله حيوانات تهدين رق بايس كل شيء سينه رق لما تهدين هذا رق تهدين ودن باس ما يصلح هيد وناكسن قبيلة حوم وايس كدين لهيدين دور كينا وشرف لهيدين عروتينا وإلى لهيدين دين تولا وهجاتين لهيدين لكن وحاكتين ولا روح حركة قار عفر عشان ميرن وحق سوى تاجن مش كاسرنا كله ما فهمتي والآباء هذو دارم يا ما وحرها وصح آباء يبقى ظالمة ما فهمتي آباء هي ظالمة ودت كاسو ما يكون حشرة وحقه عن الدمر مركا هذا يروح ويان dumarka waa gabdhaheeni caruurtay dhashana waa caruurteeni ma fahamti caruurtay dhashana waa caruurteeni
haddaa adigu leedahay carruurtan adigoo baasboor yurubiyan haysta oo najaasa oo waddankaaga iibiyey oo burburiyey ayaa adeer naag soomaaliyeed oo waddankeedii joogta oo ugu badan yihiin dumarka soomaaliyeed badankooda ma soo baxaan oo yaanyadooda iyo caanahooda ayaa iska iibsada oo caashuurta laga qaado oo siyaasiga xun ee guddaafada ay marka sameeyagu ay teegaaraan waxaa la yidhahaa dahabkoodii waxaa la yidhahaa qabiil gruubka soo dar whatsapp inaadeer tolnimo ahalnimo haa maanta tolkiibaa wuxuu u baahan yahay dhaqaale fulaan lacag siiya waa inaa la soo saara marka lasoo saarana wuxuu leeyahay dumarku waxaa la yidhaha waa naaqisaatu caqlin wa diin shalay markuu lacagta weydiisanaya diinta muu kusoo wareegi jirintii muu oran jirin naaqisaad hadduu ka oran lahaa naaqisaad baa tiidin lacag may siin lahaayeen marka dumarkani iyagaaba qaldan waayo adeer rag xaqiina cunaysaa u teegaartin wallahi alcadiim haw sidaa u teegaari kartaa qof hawadaba ku ogoleenba inaad nibsatid nacaskaasoo kale ayaa xaggan hooyada war hooyaday way kaa sharaf badan tahay aabbahayo dhilada ku dhashay boose gabdhaha soomaali ka leexo gabdhaha soomaali adeer ka leexo xuquuqdooda looga hadlaya waa hooyada waa walaasha waa xaaskaaga adigu ku joogjoogsanayso khaniisaa tahay waxba isku haysan aad tahay marka waxa weeyaan adeerayaa dulumka ilaahay ma ogola dumarka soomaali waan dulnay intaan dulnay cuquubadda maanta soomaaliya lagu hayaa oo ilaahay waxa inoo siin waaye oo baraka inoo siin waaye oo meel aan u gaari weyni gabadheena soomaaliyeed baa la dulmayaa waa la kufsanayaa waxa doona baa lagu samaynayaa hadday istira wax noqo waa laga hor istaagaya hadday istira waxaa la yidhahaa ummadaada soomaali wax u qabo ninba xaggan hore adiga iyo xalaashaada iyo wax kastaba anigaas kale nin soomaaliya ayaa gabdhahan dulmaya soomaali dulmka gabdhaha soomaaliha laga daayo gabadha soomaali siduu ninka soomaali xaqu u leeyahay iyaduna xaq way ugu leedahay dhulkeeda hadday nin ajnabiya guursatay adiguna nin ajnabi gabadh ajnabiyada aad guursatay adeer waddankan waa inaa loo sinaadaa waa maxay waddankan u leeyahay raggin wax may qabtaan waa kaas war maanta haddaa talada xataa wax yar looga dhiibi lahaa wallahi dumarka waxbaa isbedeli lahaa waxbaa isbedeli lahaa والله العظيم يعني واحد لقى حماضه وريا اخي وكنت جوجستين وليبا عرفتودي با لا sheeganina ma aha Soomaali adigana marka Europe joogtid Mareykan joogtid xaqaas baranaysa naagteed waa Mareykan aniga weys citizen aan noqdaa waa inaan carruurtay citizen ay noqotaa marka adigu saa u jeceshahay nin rag inay carruurtaadu sharaf ay ku noolaato waa ina u ogolaata gabdhaha Soomaali inay sharaf ay ku noolaadaan ma garateen marka al umum anigu intaasaan soo galay waxaana jecelahay dadka social media ku jira inay qadiyada gabdhaha la dulmayo ee Soomaaliyeed laga hadlo wallahi miftaax xaqaas ku jira inaanay Soomaaliya weligeed hagaageen inta dumarka Soomaali xaqooda la cunayo inta dumarka Soomaali af macaana marka ay doorasho ay jirto iyo markay wax laga rabo waa kaase imka doorasho jirta dumaroowe nin Soomaaliya dawladda federaalka maanta xisbiyada la furay oo la dumarka Soomaali xuquuq ba siinaya miyaa maqasheen de waxaan anigu codkayga iyo dahabkaaga waxa u siinaysaa nin aana ku ogolay waa kaasi car waa ka dumarku bal lacagta yar ay haystaan iyo qabyaaladii musharaxiinta ku heelinayaan ninkan ugu heelisay qabiilka horta wax ma ku ogoliye gabadha adan kula hadlaya taadan khayr teegaarsan taadan farmaajo teegaarsan taadan waxa la yiraahdaa Cabdi Shakuur teegaarsan taadan waxa la yiraahdaa kii waxa la jiray
kii mid baa soo baxay baa layidhi magaciisa waa iloobi mid aniga magaciisa ii sheega mid baa soo baxay hore aan loo aragi ya magaciisa soo qarbal magaciisa waa iloobi oday yaroo garcad ma garate saasaa lacagta ugu shubaysiin ya soo dhowow madaxweyne soo dhowow adiga daraadda aakhir shay dastuurkii kugu xukumayey dastuurkii uu adiga kugu xukumayey ayaa waxaa la yidhahaa aanu waxba ku ogolayn dastuurkii uu ku dhaaranayey uu tallaahi bilaahi uu ku marayey ayaa wuxuu sheegayaa maanta haddaa gabarh soomaaliyeed aad tahay aa nin ajnebiya aad guursatid xaq mawlid baasboor carruurtaada xaq moo laha haddaad tiraahid wax noqo ma lagu ogolo baa lagu oranaya hoostaaba lagaa qabanaya ma garatay marka anigu waxaan leeyahay dumarow raggan ka tashada doorasha imika jirta wallaahi lacagtiina iyo dahabkiina meel dhigta xafladahoodana ha tegina iyagaana baryayo wallaahi xuquuqdiinoo kaamila ka helaysid dahabkiinoo keliya ayaa intaasoo milyan ah oo inta afar nin oo xayraana waxaa la kala qaybsanayaan hadhow tole markay kursigaas aagu fadhiso koranaya waa la yaakhay dumarkan laa xawla ma dumarkaa waa naga daawaxan war nin noo keena meesha ma dumar baa wax noqon kara ma dumar baa wax talin kara ma dumar hadda markii doorashada haddii wadaad ay noqoto marka xarakadka shabaabka imika arkaysid adee dumar baa lacag bixiya ya marka lacagta laga rabo quruxda laga rabo inay meel soo istaagto laga rabo inay calanka ruxda laga rabo inay furtada ruxda laga rabo ya waa gabadheeni waa tolkeeni waxay doonto ahaato insha allah gaalad ha noqoto waa la soo dhaweynaya insha allah lisbian ha noqoto waa la soo dhaweynaya waayo dahabka yar ee hadhada ee afarta yar ee kaatun baa laga furfuranaya marka kursiga ku fadhiisto waxaa la yidhaha waxaa la oranayaa waxba ma laha way taniyay ahayd war dumar ma la isku soo dhaweysto balaayaa tahay baa la oran ya war dumarku war marka adeerayaal gabdhoy dantiina garta wallahi alcadiim anigu ogahay ana aaminsanahay inaanay ragga soomaaliyeed anigu rag waanahay ragga waanahay laakiin anigu dumarka waan qadariya xaaskayga waan qadariya hooyadey waan qadariya cid kasta waan qadariya inaadeerta waan qadariya habalwadaagta waan qadariya gabar kastoo soomaaliyan waan qadariya oo ka jecela cid kasta inay xuquuqdooda helaan waayo maanta soomaaliya 30 sannadood bay burbur ahayd 30kii sannadood burbur ahayd adeer dumarka ayaa garab istaagnaa ragga adigoo xayraan oo waxba haysan oo gaajo u dhintay ayaa intay biyaha qaato inta logeyso 10 kiilo bay biyo ku soo qaasay isay haraadka kaga baabiso adigoo xaga fadhiya ha tolkii baa tashanaynaay naa cuntana soo samee naa geelka inoo qal naa cuntada inoo kari naa burabriyer noogu dhufo naa wax Soomaali ninka Soomaali wuxuu jecel yahay gabadha intuu ku shaqaysto wuxuu doono ka dhamaysto hada tolo yiraaho yahay xaqiiqatan yahay wallahi anu waxa xasanay group bari lagu soo daray oo mandhibaankaasa ayaa gabdho badan baa lagu soo daray markaas waxa laga hadlay xeerarka markaas xeer yar banu fiiriyo markaas ku yiri waniyo gabdha abtiyaal loo ah aba gabdho wala waxa xasuustaa sheekada ninka mas'uulka marka groupka ka ah waxa weydiiyay waniyo gabdha inagula jira gabdhahaasina de rag kala qaba qabiilo kale ka soo jeeda okay gabdhahaas waxa marka ay xaq ay leeyihiin di hadduu bartoola inankeedu wax dhibaato ila sanduuq ma sameeyna lacag ma iska aruurinayna gabdhaha lacag bay bixinayaan okay gabdhaha lacagta bixinaya bartoola inankeedii amba inanteedii amba magafa qabsaday amba dhibaato ayaa timi waxa xala waxa marka iyaduna ma qaadanaysaa wax markaas iyada nin baa qaba qabiil bay ka tirsan tahay de waxa gurwada qabiil ay ka tirsan tahay waxay xaga la joogtaa waxay gurubkeeda la fadhidaa de gurubkeeda qabiilka ay u dhaxday may qabato
gabdhoy waa maqashay sheekada soo ah dee meesha iska baxa waxaa la fidid meesha ya lacagtaadii baa lagaa qaadanaya codkaagii 24 saacadood weelkii yaraa dhaqaysa waa lagaa mashquuliyey inankii yaraa bambarskii xidhisay waa lagaa mashquuliyey waxaa la yidhahaa ninkaagii isku hagaajinaysa waa lagaa mashquuliyey aakhir shay markay dhammaatay sheekadii waxaa la yidhahaa waaxad rubiya hal shilin lacagta weliba adigu waa bixinaysid kugu soo noqon mayso anna kaa cunayna marka adeereer waxa weeyaan gabdhaha soomaali wallahi dulum baa lagu hayaa wallahi cadaalad xumo ma fahamtiin marka anigu waxaan oran lahaa adeer dowladda soomaaliya halala hadlo dastuurka soomaaliga ah ee ummadda gabdhaha soomaali dulmaya waxaa la yidhaahaa ha la iska daayo waxa laga bedelo gabdhaha soomaali anigu xagga waxaan ka farayaa maanta jaanis baa haysataa doorasha ayaa jirta waxaan la hadlayaa gabdhaha aqoonyaanka ah ee aniga xaggayga daawanaya maxayna ma umaliye meeshan gabdhaha aqoonyaan intaa ku jiraan malaa wixii caanaha iyo geelka iyo wixii la sii ma garateen gabdhaha haddaa xataa gabdho garaysa xisbiyada ku jira adeer fariintaa weydii war cabdishakuurow dee adeer waan ku dabaaldegaynaa waxaa la yidhaahaa dahabkaan kuu furaynaa xataa macakii odayga hadiyadda ii siiyey habeenkii arooska waan kuu soo saarayaa dee waxaan xaq ku leeyahay inankayga yar hadday imika gabadheeda yar nin ajnabiga guursato beritoole waxaa la yidhahaa carruurtan ayayda u ahay au noqonayo waxaa la yidhahaa soomaaliya iyo mise ma aha wuxuu dastuurkaaga ku leeyahay taas idinkayna ku xiran tahay waa ina laga hadlaa waxa laga gabdhaha imika social media isku haysta ya ana wadhibaan naadheere ana isaga kasii daran ana majeerteeriya ana khatariya ana ayaiya adeer waxaa taana noqon horta majeriya iyo madhibaaniya iyo isaaqiya iyo daaroodiya iyo hawiye iyo adduuniye iyo ma ka ogolyihin ma ogolyihin ninkii soomaaliga hadduu gabadh qabiil kale ku gursada baa laleeyahay gabadhan qabiilkaasay noqotay carruurteedu waa qabiilka aduu lacagta keen isku qabiil markay magac noqoto keen lacagta laakiin aduu qabiilkaasaa tahay shil ma lagu lihi cadaalad xumada xaggaa taala yacni iska daa baasboor iyo wax kale gabadhii oo soomaaliya gudaheeda joogta hadday nin kale u dhaxda way ku leeyihiin gabadhaas qabiilkaasay noqotay ma kristan baa markaa diin kristanaan haysanaa ma diin kristanaan markaa haysanaa marka kaleeyahay gabadha waxa ku abtirsanaysaa ninkeeda aabba ma laha hooyo ma laha ayeeye ma laha lacagtan hooyada soo diraysa nin baa laga soo qaadaya dee ninkaa carruurtiisu miyana xaq u lahay markaa inay wixii qabiilkan laga siiyo iska daaba baasboor iyo waxaas marka adeerayaal meeshan cadaalad xumaa ka jirta dumarka soomaali waa dumar iska masaakiina wallahi alcadiim anigu weligay maan arag dumar ka miskiinsan wallahi ragga soomaali waa very yani waxaan idhahaa luqad aan ku caayana gernin waxa waa way dhamaatay waxaan ku caayo ma wahiba laana waa xoolo way ka dareen qofku markuu xoolo ka darno waa dhibaato waar gabadhii walaashii buu ku leeyahay nin ajnabi guursatay xaq buu ku lahaa waddankan carruurteedu laakiin anigu waan dhoofaya naag ajnabiga soo guursaday dhulkan anigaas kale buu ku leeyahay waar ilaahay markuu ku abuurayo caloosha hooyada ka soo saaray dee dhulka way ku dhali lahaydeen nin kale ay xagga ka guursan lahaydeen meeshana lagu weleliyey marka adeer waxa weeyaan qadiyadan ha laga hadlo iminka doorasha baa lagu jiraa nimankan iminka sacab u tubaysiin fitada u ruxaysiin dahabka u iibinaysiin adeer iska hubsada dastuurka soomaali iminka gabar baa la hayaa la yidhi adeer adigu nin ajnabiya ku qaba carruurtaadu xaq ma kula waan soo dhigayaa barnaamijka isagoo dhan baa soo dhammaystiraya waa cadaalad xumada taala adduunka niyow waa cadaalad xumada taala markaasaa leena ilaahay tawfiiq soomaali ninka walaashi dulmaya ilaahay tawfiiq sugu siinayniyo ninka walaashi dulmaya iska daaba cid qali walaashii buu dastuur dhan xagu ka hadlaa walaashiisa xuquuq warda walaaltimadu waxay tahay walaaltimadu waxay tahay ما أنا ولاك ود دفاعها ولا شيء تدفع حق موله ولا شيء ترى وحال حقوق ما حق موله دينته ما يفرن رحم ماها ولا شيء رحم ماها
ina xuquuqda u hadla maaha والله العظيم يعني بروح حماده والله أرنتها مانته والله يعني إنك ما ورق حوتيها وباسبورات دبا عرنا iyo dad ajnabi intii baasaboor nasiyaano soo tahriibin doon soo karno liibigina wasayaayo suudaaniga nagu umiisayaayo markaan doon soo fuulinayo badda dhexdeeda shahaadeenayo sidaan baasaboor European iyo dawlado kale aan hayno markaas gabdhihii lagu cadaabay leeyahay adoo nin ajnabi gursitay adigaaga waddankaagii burburiyey lagaa fariisan waayey waxaa la yidhaahaa nin shisheeye u shaqeeya jaasuus u ah waxaa la yidhaha nin walaalka aana waxba u ogolayn ayaa dastuur samaystay cala keef hooyadii soomaali dulum ma isku haystee dastuurkan soomaali baa dulum inagu haya soomaaliyey dastuurka soomaali baa dhibaato inagu haya waxaan imika soddon sano la digi weyne waa dastuurkan maalin kastaba leeyahay ma dhamaystirmin waar kii lixdankii noo keena kii siyaad barra baa la qaatay kii siyaad barra calqal gabadha soomaaliyeed nin ajnabi hadday guursato baasaboorka xaq ba u lahay carruurteedu baasaboorkeedu carruurteedu soomaali bay ahaayeen waxaan ay afarta gudaafadood dastuurkan gudaafadii ummadda u sameynaya sii kala fogeynaya walaaltimadii buu kala fogeeyey waxaa la yidhahaa cilmaadarnadii buu kala fogeeyey waxaa la yidhahaa labadii walaalood sii kala fogeeyey carruur dhan oo soomaali ah oo hooyada soomaaliyeed ay tahay ayaa lasii fogeeyey lagu leeyahay soomaali maaha dad baa oranaya macadana walaasha war aniga walaashay baasaboorada soomaaliya gudaafada ma u baahna anigayga wallahi kayga ma u baahni midi waxaa uga baray baasaboor soomaaliya waxaa buu tarayaaba waa afar qabilayaal baa soo sameeyey oo soomaali baa cuntada 400 laga qaadanaya baasaboorka soomaaliga wuxuu tarabar hala sheego wuxuu taraya lacag soo bixi baa ayaa leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed ajnabiga qaba mala muur mari mise siyaasad baa lagu wadaa oo carab baa la iska dhisayaa iyo filimo baa la iska dhisayaa anigu fahmay waay dastuurkan iyo baasaboorada iyo waxan baasaboorka Soomaaligu Itoobiyadas haduu geeyo alxamdulillah qaanada ayar haduu ku yiri geeyo alxamdulillah waxa laga hadlayaa maantada hadda xagga Jarmalka lagu qabto adoo baasaboor Soomaaliya sita ma fahamtay oo dad isku tagaan safaaradda ku soo dhaaqaysa waxay tahay ya ma Soomaali u baahan baasaboor bar haystaba ma iska cararaysa baasaboor faa'iido uma laha hadde waxba ka difaaci maayo hadda intii laga saar maayo ما نويو فرماجة دورشو كريمي بو أفر حباس هو صاري وكوا أمريكا سو سومالي وكو حرام باسورك سومالي أبا سفارة سومالي هدي بور ليدا هما سومالي صبح هدي كده نينك وينك سنة واتر توري بدي نينك راي مشرتي كمان ملايا واتي لاقي قاضي يا وانيك كلية ولي انت أركي سفيري وزير أركي وانيك كلية سومالي يمقعود الشرفية يعني يمكن ولا قاضي يا نعس لماذا حتى قبيالد يقولك يقول حجته يعني حتى كي اكتف كها فينا او مده احتري ولا تورا على العموم انا waxaa soo dhan ma soo gelin war adeer waxaa soo galay imkan waa ka baxayay waqti badan maasi laakiin maalka soo geliya wallahi maanta laga qadiyadaas wax kale ma hay hooyadu gabooy hawsaan ma dhibaan hawiye isaaq ma jirteen fuck off wax qadiyada laga hadla ma maanta laga every day wallahi maalin ka saagna soo fariisanay 1 hour gabdhaha Soomaaliyeed waa la dulum baa lagu hayaa dastuurka Soomaali dulum buu ku hayaa dastuurka Soomaali waa mid xaraan lagu dhisay mid cadaalad maaha waxa la yiraahdaa kiisiyaad bare dastuurkiisa loo soo celiyo kaasaaba la qaati oo Soomaalidu sinnayd oo waxa la yiraahdaa gabdhaha Soomaali xuquuq ay ku lahayd oo waxa la yiraahdaa karaamad ay ku lahayd waxan najaastay soo baxay markii dambe ayaa Soomaalidu isku dirsay gabdhaha Soomaaliya oo xagga fariib baan uga dirayaa doorashada dahabkiina ha furina jeebkiina gacanta ha gelina xafladana ka ciyaaraysa fikir xuseen joojiya iyaga qasban can dastuurka bedelay diracan $200 adeer aashu iibinaysid adeerkay carruurtaada si adeer carruurtaada si wallahi
waxaan najaasta ragga Soomaali ma istaahilaan inaa wax ragtiin aftida u ruxtiin oo gaweydiin ma istaahilaan waxa istaahila qof wax ku taraya ayaa wax la siiyaa waxa ma ku ogola hadda dibada joogsidna waa ka imsa gabdhood baa si galmadara raggoodii waxa la shaarac ka dhaqaaqay ya Soomaali gudaheeda maalinba mid bay guursadaan kul second waxa ka sanin kula sideed naagood baa Soomaali حتى تعمتها وكرنس بني سوق لسه وكذا عاقيا رك أنا أبغى لهين أو أدونك أجوحن أيا دم في الدين أنا صومالي أنا كصومالي أنا كصومالي حقوقك شرفت وكادري شرفتها قيمة ملهد $1 بجيب قالوا قيمة متاعي مركا هذا يروح على قبله وحن أنت سكدي سين دور شو كان أم بك عرصة درجة والله ودور شو يقوم معاني nin kasta waxa rabaa codka dumarka arwada xafladaha fiiriya boqolkiiba 30 gabdha Soomaaliyeed iyagii baa mikrofoonki haya iyagii baa dhar fiican gashan iyagii baa FIFA leh FIFA khayri FIFA Abdi Shakur FIFA Diri FIFA Ayeyo FIFA Musabihi FIFA حقنا بكلها marka intaas ka baxay adeer dulumka la jooji ragow dulumka gabdhaheena Soomaali anigu wallahi dabar qaro wallahi laakiin waa dulum weeyaan anigu uma jecel walaashay taa la dulmo walaashay sana anigu jecel taa la dulmo ina gabar Soomaalida kala dulmo ma jecel iyada wallahi walaalahay marka la xisaabiyo anigu walaashay baan ku jeclahay walaalka waa nin ragga wajdabaraya meesha doonaba ka dhacaya laakiin gabadha walaashay maanta حتى نين أجنبي قوم ما تدوك شارع كذا هو هذا أنا حق له إن أنا سوق حيستو عرفت أن كرسده عرفت أبتقاونا أنا حيستو أنا حق له مركز دولتي دمائد الصومالية هاي إن حقوق قبلها هنا الصومالية إلى الصوم هي حتى فرق كسوة من أجنبي يقول ستي إن حق أو هيسو إنه دستور كصوماليا ما أنت ويراه كان عصبة فتالك دستور كان حشيشك ما قرأتي إنه يراها قبل صومالي الحق مولها لكن ما كان قبيل نقطة قبيل لو أول نقطنا للصيو هدا مدحوينها ودود هاي فرماجة هدا المادير هتهدين هدا وحليرها نكن ليرها خير المادير هتهدين هدا كان فارح حليرها روبله هدا المادير هتهدين hoos hal ugu dhameeyo laakiin gabdhaha shacabka Soomaaliyeed markay yimaadaan ay rahaan adan ajnabiyaana qaba ina dastuurka lagu marmarsoodo waa dhibaato leedahay ayaa dastuurka Soomaaliya ayaa sheegaya hadaa nin ajnabi ah guursatay adeer carruurtaadu waa ajnabi ninka hadalka leh ee dastuurka sameeyay isaga laftiisa baa amba citizen Mareykan ah amba citizen British ah amba citizen waxa la yiraahdaa Faransiis ah amba citizen waxa la yiraahdaa Mexican ah meelaha bilaayada ay wataa baasaboorkiisi ninka dastuurka Soomaaliga ay qoraya ma aha nin Soomaaliya waa nin jinsiyad kala haysta ayaa leh gabdhaha Soomaaliya xaq ma u laha nin ajnabi inta guursato haday guursato inay carruurta Soomaali noqoto waxa kabaradu waxa ana hoos banagay ma fahantin marka adeerayaal ilaahay baa iska jira dulmka gabdhaha laga joojiyo caaniga maalin kasta soo galiya GWL maanta laga bilaabo qadiyad kale ka hadlmaayo qadiyad kale wallahi la ka hadlin illa qadiyada gabdhaha Soomaali inta xuquuqdooda la siinayo nacala bi ku yaale waxa weyn cidina caayda ragow wax in caaya gudaafad baa tiidin awna nin ajnabi guursatayo arsid war caaqal ajnabi guursata carruur yar shukulaata keenaysa carruur yar cuqdada iyo qabiilada qowlan bay keenaysa carruur yar hooyadood iyo ayeedood iyo awowgood wax taraya bay keenaysa imsaan aragnay carruur hooyadood ajnabi ay tahay waxa la yiraahdaa abo ajnabi yahay oo Soomaaliya cid wadanka ka jecel waxa wadankooda aad u jecel hooyadood
marka anigu waxaan la yaabsanahay xaqan siiyey adiga inaa adigu carruurtaadu baasboor soomaaliya qaato adoo gabadh ajnabiyada guursaday gabadhaha soomaalina haddii nin ajnabi ay guursato u diiday xaaraantaa lagu dhaaranaya kitaabka lagu maraya gabdho bal adigu fiiriya xaggan aska fadhidin hogaamiyeeni allah talkiyo soo kacay tolay ninkaa tolayga u leedahay isaga laftiisii baa ku leh tani waxa maaha marka adeerayaal aan ka doodno anu maalin kasta xagga waan soo geliya wallahi ana qadiyad kaleba ka hadlinba walaa xata ma jarmal waa iska juuji ciilka iga hay qadiyadda waan yaabasanahay waay see u dhici kartaa yaa akhi talabaad safaaraduhu miyay kala duwan yihiin safaaradana waa bixinaya safaarada waxay leeyihin may dastuurka safaarada kale dastuur ma laha يعني وأوجده قف كان دونه وصير يعني dadka safaaradaha fadhiya waa cusuriyin mid baa Facebook daawanaya waxa arkaya gabdha waxa qaar Soomaali caaya markaas gabadh yar miskiinada iska shaqeysata Sacuudiga amba Qatar iska shaqeysata amba Bahrain iska shaqeysata ayaa waxay tagaysaa safaaradda bay qabar saxaraysa walaal baasboorkii baa iga dhacay bas dee adigu waxa tahay waxa yar Soomaaliland baa tahay fuqii baa ku hadlaysa fucking shit هذا حاله في فيسبوك دا والله هو مد كيو اسك دحاكay waa qaanuun uu soo dejinaya hadda xeer amba dastuur u diiday gabadha Soomaaliyeed ee ruqooyiga inay baasboor qaato amba wiilka reer ruqooyiga baasboor u qaato xeer u diiday ma jirto laakiin uqdad iyo nacayb Soomaali lagu abuurayo ayaa safiir xuno meel fadhiyo qabyaaladaysan ayaa waxa ku dhaqmaya هذا ولا أرنيا صومالي بالسكينية حاجة السكينية حاجة السكينية إنك بس يسين إنك بس قميصين إنك بس عاين إنك بس بهدلين إنك بس لهرني إنك بس جاسوسين قبل هني مالك سوالك السنة نيجي كسنة وحليرها أنا كو قبيل فلانة أنا كأنه ملت لي كرا ولا سويت حاجة وحليرها قبل بشار حبيبي مرة توم بسوش كاسنة أدي واحد قبل الله أدي ياك ساري ما قبل محترمة أتوقع هنا واحدة إذا عيد الله سارية هذا رجي إذا بدرد ودي حماتي ودي فرنا سار ماي مركز يا دول بقى قبلها كويسين سومالية إنك يدسور كينن يمدحوينين فكيو بارنولاه فكيو والله وحكلا إراها مشرتو وحكلا عن إراها مشرتو marka waa inoo barito walaal aanu maalin kasta soo galiya wallahi barnaamij kala haysan wax kala barnaamij kala aan haya ma jirto habeen wanaagsan